Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga waa Rabaab Sabriye. Maanta waxaan ii wadaa cambaaburkan sida loo sameyn lahaa ila daawada insha Allah. Waxyaaluhu ka kooban yahay waa waxyaalahaas aad arkaysiin, qiyaastooda iyo waxay yihiin iyo sida la iskugu dardaray insha Allah ila daawada. Weelkan waxaa ku jiro toon iyo basal. Waxaan ka bilaabaya weelka u horeeya, waxaa ku jirto xulbad, huruud, xabasowda, kamuun ama cumin, sokor iyo soor baa ku jirta xaggaas. Xaggana waxaa ku jirta powdered milk, caano nido. Xaggana brown flour 1 koob ah, 2 koob iyo maxaa la dhihi jiray white flour ah, iyo basal iyo toon baa xaggaas ku jira ayadana. Marka sida la iskugu dardari lahaa insha Allah ila daawada. Marka ugu horeysa waxaan shiidanaynaa toonteeni basasheeni. Basasha waa basasha cad 1 xabo yar, toontana waxay ahayd 2 xabo medium ah. Hadda xaggaas weelka waxaan ku shubanayaa 2 koob oo burka cad ah, 2 koob oo burka cad ah baad ku shubanaysaa, iyo 1 koob oo brown flour ah. Burka cad oo kaliya aad ka wada samaysan kartaa, haddii kalena waa iska dayn kartaa. Iyo maxaa la dhihi jiray koob halfkiis, nus koob oo caano nido ama powdered milk aad bas u taqaanid, iyo huruudeeni, sokortii yareyd, cuminkii, xulbadii, xabasowdadii baa xaggaas ku jiray. Xaggana waxaa ku jirta basashii iyo toontii. Waxaad ku qasanaysaa biyo caadi ah, room temperature ah, qandac yar ah. Biyo qabow waa ku qasan kartaa hadaa rabtid. Waxaad u qasaa sida canjeerada baad u qasasaa, canjeerada caadiga sidaad u qastid usually. Qaxiso ama leave it kuma darin because canjeerada caadiga ah kuma darsado, indhana way yeelataa. Straight away markaan qasana waan dubaa. Marka ayadana hadaa rabtid saan u sameynay insha Allah waxaad ka daawan kartaa videoyga. Linkiga hoos baan soo dhigi doonaa insha Allah. Yani canjeerada caadiga Soomaalida sida loo dubo ama loo qaso. Marka hadda sida caadiga canjeerada u garaacaysaa, huruud iyo waxyaalaha kama badin because dhadhankayga baan yani la soconaya qiyaastooda. Adina marka dhadhankaaga waad ka ciyaaraysaa. Marka hadda si fiican iskugu garaac. Waxaan si fiican iskugu garaacaya because overnight ma dhigayo, habeenkii ma dhigayo. Dad baa habeenkii dhigto subaxii samaysta, subaxa ciida. Marka anu si fiican baan isku dhex gelinayaa buurkii waxaasaan ka dhameynayaa. Hadda waan dhiganayaa. Adiga muddo waxaan dhiganayaa 20 daqiiqo ah. Hadaad doontid 1 saac baad dhigi kartaa, hadaad doontid overnight, hadaad doontid straight away baad ka duban kartaa. Ana hadda 20 minutes baan weelkaas ku dabooshay. 20 minutes kadib baan usoo noqday. aad uma jilacsana, aadna uma adka. Marka sida loo dubay insha Allah. Hadda waxaan xaggan kusoo shubtay subag baan kusoo shubtay weelkaas aad arkaysiin. Waa marka ugu horeysa ma tusin, laakiin sida caadiga canjeerada baan u sameeyay. Sokor baan korka uga darayaa hadda. Hadaad rabtid waad gadgadin kartaa. Subagii baan haddana ku darayaa. Dad baa gadiya oo sidii malawax u sameeya. Sideedana waad ku cuni kartaa. Marka saasaan u sameeyay. Subagii iyo sokortii baan ku daray. Xaggaasaan dhiganayaa. Tan labaad baan tusaya insha Allah sida loo sameynayo. Sida caadiga canjeerada u samaysanaysaa. Waa canjeero kibirtay bay dhahaan dadku. Marka sidaas arkaysiin baa u samaysanaysaa. Kaamirada way iga go'day, iga raali noqda. Marka same process baad repeat gareynaysaa. Anu sidan u samaystaa. Kale dadka different bay u samaystaa, qof walba dooq buu leeyahay. Marka hadda sokor baan korka uga darayaa. Sokorta caadiga cad. Haddana waxaan ku darayaa subagii
subagii baa korka uga daraysaa, dhadhan fiican macaan buu u yeelayaa. marka wakaasaa hadaa rabtid waa gedin kartaa, hadaa rabtid waad iska dayn kartaa, sideeda ku samaysan kartaa. marka wakaasaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.